dhalintu waa dadka u badan ee dalooliya hadday saxmaanna waa dadka u badan ee dalooladaasi awdi kare joojin kara waa dadka u badan ee xaabada u noqda daloolinta fusaaqdu dadka ugu badan ee ay lumiyaan waa dhalinyaro dagaalada qabaa'ilka dadka ugu badan ee la geliya waa dhalinyaro qadaayaadka siyaasiga ee muranka keena dadka ugu badan ee mashaakilka ka dhiga waa dhalinyaro haddii cagsiga loo kaxeeyo dhalintaasina waxaan odhan karnaa waa dadka ugu badan ee sixi kara ee joojin kara laakiin waxaa loo baahan yahay qofka dhalinyaradii inuu fahmo mas-uuliyatuhu tijaaha almujtamac xilka ka saaran inaanu dameerdhaan raacday noqon inuu garto xilka ka saaran oo uu joojiyo xumaha wallahi dhalinyaro qofku yuu naftiisa qura ka fakera aragtidaadu iyo ku koobnaanin maxaan cunaa iyo maxaan ka shaqeeyaa iyo yaan guursadaa iyo meesha salaadaada ku tukanaysa cibaadadiisa nacam intani waa intii naftaadu ay kugu lahayd laakiin bulshada iyo ummadda kalena xil baa kaa saaran xilkaa kaa saaran mid waa inaad xumaha joojiso haddii kale doontu weynay la wada degaysaa xumahaasi aad ka hortegaysaa ee mas-uuliyaddu kaa saarantay waa mid diineed waa mid dhaqameed waa mid siyaasadeed waa nolosha bulshadoo dhan wixii dhib ku keenayo o dhan inaad ishortaagi karto inaan qof muslima raaco oo aan dantiisa u oofiyo yacni bulshada danteeda inaan ka shaqeeyo ayaan ka jecelahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inaan masaajidkaa fadhiyo sidaa idhaahdo saas sameeyo weerarada dabadda ka yimaada bulsho kasta waxaa dhacda inay isdifaaci karto laakiin weerarada aanay dareemin waa kuwa gudaheeda ka bilaabma mujtamacaadku markaa haddii taraabudku isku xidhnaanta iyo sistamkooda iyo maamul ilaahay yaqaana hadday waayaan waa maalmo uun waxayanay grif leeyihiin ee daloolku uu ku socdaa waana dumaysa haddaan la qabanin kan nabadda waxyeelaya ama aan la qabanin kan caqiidada iyo diinta waxyeelaya ama aan la ishortaagin kan fuxshiga iyo faaxishada iyo dhaqan xumada wadee faafinaya ama aan la joojinin kan nidaamkeeda siyaasiga iyo qaabka ay u degan tahay waxyeelaya dhammaantood waa wada faaskaasi haddii markaa la dalooliyo dadku wuu isla degaya markaynu ku yeedhaan wax noloshiinu ku jirto diintu nolol baa ku jirta ilaahay ku tilmaamo وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وأنزلنا إليك نورا مبينا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى دينتو وح نلش لوجر كارسلو الدبا لبا الشيء أيادا ليرنا لغربا مدوا حمها إنو شرتها مدينة والصباح إنه كقيم قاطع ما دام بالشدة يسكح ردها إلى هنا لا يفتنا كنا وصدان أنت سما يسوقنا هليل نبينا عليه الصلاة والسلام في السحابية ويديسها نهلك وفينا الصالحون لأنه هلاك سمينا يضدد ونكسن الوجران وقلت المامي نعم إذا كثر الخبث هدي حموم iyo dadka xumay bataan in la halaagsamaya bulshooyinkana dadka halaaga ima inay akthariya noqoto daala ama inay noqoto inta mutanafidiinta ah oo lunsan inta kalena ay qaban weydo وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أيها الأحبة ما دام وقتي بوكوبية لما غضب وقت المامية غضب وحق السلبي إن لو هرتبه
wixii bulshada dhib ku keenaya in laga hortago qodobna waa dhanka iijaabiga ah oo wixii wanaaga in la isu gargaarsado wax laga qabto diinteenna waxaa taqaaniin inuu jiro wax la yidhaahdaa waajib cayniya iyo waajib kifaaya waajibaadka cayniga ah inta badan waa waxa qofka isaga ku saabsan waajibaadka kifaayigana waa waxa laga rabo bulshadu inay samayso haddii cid ku filan ee ay u qunto bulshadu ay badbaadayso nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo tilmaamaya bulshada iyo isku xidhnaanteeda iyo fasaadka cidi samayso inay inta kalena raadaynayso iyo mas-uuliyadda dadka ay saaran tahay inay qaataan ayuu wuxuu nabigu yidhi mathalu lmudhini fii xuduudi illah waalwaaqici fiiha xadiidka imaam albukhaari fi kitaabi sharki fi kitaabi shahaadaat uu ku soo saaray bukhaarigiisa tirmidina kitaabu lfitan dhammaantood nucmaan ibnu bashiir saxaabiga la yidhaahdo ay ka soo saareen riwaayaadka qaarkoodna mathalu lqaa'im yidhaahdo laakiin riwaayaadka saxiix xusaan bay u badan yihiin mudhinku waa min alidhaan almuxaaba fi gayri xaq yani waxa weeya qofka muraa'iga ah ee xuquuqda dayacaya ee aan munkarka inkiraynin idan qofkaasi ilaahay xuduuddiisa aan u aabba yeelaynin oo marka lagu dhacayaa wax ka qabanaynin iyo ka ku dhacaya waxay la mid yihiin baa la yidhi sidii duul doon wada fuulay oo dabeetana doontii u qori tuurtay oo qolana xagga sare fuushay qolana xagga hoose fuushay oo qoladii xagga hoose saaray markay biyo doonanayaanba kuwa xagga sare ay sii marayeen oo ay markii dambe yidhaahdeen qoladii sare ka cabatay waxay dhahay war qoladan intaynu dhibiba lahayn maynu xaggeenna kan ka dalooshan dabeetana xadiidku wuxuu leeyahay faas bay qaateen oo waxay isku dayeen inay hoosta ka dalooliyaan markaasuu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam war waa maxay baa lagu yidhi waxay idhahdeen dee waa nagu dhib baa sheegateen sidaa daraaddeed biyana waa u baahannahay dee marka xaggaygaanu biyaa ka doonanayna marka kuwana waa kuwii dhibta ku dhacaya kuwii kale mudaahinka ahana nebigu wuxuu leeyahay hadday gacanta qabtaanna kuwanina waa badbaadayaan iyaguna waa badbaadayaan labada kooxoodba hadday sii daayaanna labaduba waa halaagsamayaan xadiidkaa haddaynu in yar isdul taagno xadiidku wuxuu ka warramayaa dadka dhibta wada in gacanta la qabto alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar buu tilmaamaya xadiidku wuxuu sheegayaa bulshada nolosheeda waxaa lagu tilmaamay inay la mid tahay doontu waa shaygaa badda mara lama odhanin daar taagan oo dhulka ku taagan ee sida noloshu isbedbedelka ay u samayso daraaddeed baa doon loogu soo halqabtay baa la yidhaahdaa looxaantaa yaryar la ysku rakibay ee biyaha korkooda socda mawjaadka iyo dhibaatooyinka tirada badana la kulmaya waa mar labaad waxay culimmadu yidhaahdaan doon baa laga dhigay dad wada saaran doonta dadka safarka ee raaca mid faajira iyo mid baariba waa ku jira mid saalix iyo mid taalixaba kuwa ahlu khayr iyo kuwa ahlu xaqa kuwa ahlu shar iyo baatila waa bulsho isu timi oo nooc walba leh khayrku iyo sharkuna meel kasta oo isugu yimaado loo laba ku jira xadiidkani markaa waxa uu sheegay dadkii doonta wada saarnaa qayb ka mida inay ku fakartay intay faas qaataan inay loox ka dalooliyaan oo iyaga la noqotay biyaha xagga hoose inay ka cabbaan kuwa sarana ay dhibta ka daayaan waxay u muuqataa nimankani ismaba laha dadku hadago ee waxay u fakareen inay biyana halkan ka helayaan kuwa sarana dhibta ay ka daayaan
laakiin fikraddan ay wadaan ayaa la tilmaamayaa inay tahay waxa doonta iyo dadkaba qarqinaya cid kastoo markaa bulshada faaskaasi la dhex gasha kuwa wax daloolinaya waxay noqon karaan kuwa diinta daloolinaya bulshada diinteedii iyo caqiidadeedii iyo iimaankeedii wax yeelaya waxay noqon karaan kuwa dhaqankeedii iyo akhlaaqdeedii iyo wanaaggeedii daloolinaya waxay noqon karaan kuwa siyaasaddeedii iyo maamulkeeda daloolinaya waxay noqon karaan kuwa nidaamka iyo idaariga ahaa ee meesha ka jiray baabi'inaya waxay noqon karaan kuwa deganaanshiyihi iyo nabadda daloolinaya waxoo dhami suuraddaa qudhe uu xadiidku tilmaamaya bay ku jiraan waa bulsho nolosheedii isku xidhan tahay oo qayb ka midi ay u aragtay doonta inay dalooliso walow hayse laba saxsanaadaan kuwa kale markaa haddaan la qabanin kan nabadda waxyeelaya ama aan la qabanin kan caqiidada iyo diinta waxyeelaya ama aan la ishortaagin kan fuxshiga iyo faaxishada iyo dhaqan xumada wadee faafinaya ama aan la joojinin kan nidaamkeeda siyaasiga iyo qaabka ay u degan tahay waxyeelaya dhammaantood waa wada faaskaasi haddii markaa la dalooliyo dadku wuu isla degaya nooca daloolkunbay ku xidhan tahay hadba doontu siday u degaysaa siday u dheerayso daloolku hadduu weyn yahay yacni baabka caqiidada iyo diinta hadduu yahay markiiba way degi hadduu qiyaadada iyo maamulka iyo markiiba way degi hadduu suluuk iyo akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka iyo waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato إلهنا القرآن كوحولي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ونوات الصاليال با إلهي أن ندتك ويالينا لكن وحقر الصدى وصفي عنه فهمك وأقوم تلب إلهي سبحانه وتعالى وحيقولوا علماء إلى هذا الحديث كان وحلق فهمية المشكلات الداخلية إن يكرد بديه المشكلات كخارجية دونت بطسارا وهسكا معروفين موجودة لكل مدونتو ضبايلا لكل مدونتو روبب لكل مدونتو وحيابة ربضنا لكل مدونتو لكن واحد هذا انتبه وحكسي خطر سن مركز طبع مشكلات كداخلية أبا بلشدة كقرن بدل مشكلات كخارجية أحد علماء التاريخ الدكتور عماد الدين خليل نيكولاي هذا وحليه دور بغلاص النضاد المسلمين تسيد دميين تاريخ دودا دراسية مدمر كان دراسة أدو بلارنسي وأنا تخصص كيسي دراسة بلارن مركان سميه بولي شن يلا باتن قضب أما شن يلا باتن سكين بيسوقت المامية شن يلا باتن مديود ومد ولبا من الوريد إلى الوريد أي قيسي أي ترتبويل بربر كمسلمين تشن يلا باتن كاو شيء هل سببه كلية خارجي أهبو إلى الغزوات أي قال هذا يود على ذيك وهي أفر يلا باتن كلبه الداخلي والمامية أفريا لا تك الصبابات كلابا وداخلي تمعنى هذا حوينا أيها الحبة ورد الدبد كيما دبل شك استوحد بعدين استفاعي كرتون لكن ورد أنا يدري من وكو جده هذا قبل أما مجتمعاتكم مركا هدي ترابطكم اسكو حدنانت هي السيستم كود هي مامول إلهي يقان هدي ويان وما المؤون وحيانا يقرف لين الدلال كوكو صعدا وانا الدميسة وهنا نبي ينوت الإمام عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دل انت مركا وحليه دل انت وضدك وبضن الدلولية هذا السحمان وضدك وبضن الدلولة دا سي أودي كريش وشنكرا وضدك وبضن حابضة ونقض الدلولين
fusaaqdu dadka ugu badan ee ay lumiyaan waa dhalinyaro dagaalada qabaa'ilka dadka ugu badan ee la geliyaa waa dhalinyaro qadaayaadka siyaasiga ee muranka keena dadka ugu badan leh ee mashaakilka ka dhiga waa dhalinyaro haddii cagsiga loo kaxeeyo dhalintaasina waxaan odhan karnaa waa dadka ugu badan ee sixi kara ee joojin kara laakiin waxaa loo baahan yahay qofka dhalinyaradii inuu fahmo mas-uuliyatuhu tijaaha almujtamac xilka ka saaran inaanu dameerdhaan raacday noqon inuu garto xilka ka saaran oo uu joojiyo xumaha dhanka kale haddaanka positifeka waa inuu wax iijaabiya mas-uuliyadu inay saaran tahay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo aan xataa risaaladu ku soo degin ayuu wuxuu ahaa bulshada dhexdeeda qof waxtara saasi daraaddeed baa khadiija bukhaari uu warka uu ka warinaya wuxuu ku tilmaamaya markii nebiga waxyigu ku bilaabmay oo cabsaday khadiiji dhiirigelintay siinaysay waxaa ka mid ahayd inay tilmaamaysay qof bulshada waxtar ku aynu yahay saa daraaddeed inaan dhibi haleelaynin kallaa wallah laa yukhziika allahu abada ilaahay baan ku dhaartay bay tidhi ilaahay weliga adiga ku hoojin maayo sababtu waa maxay innaka la tasilu alraxim watasduqu alxadiid wataxmilu alkalb wataksibu almacduum وتغري الضيف وتعين على نوائب الحق waxay tilmaamtay qof iijaabi iyo facaal oo waxtara inuu bulshada dhexdeeda ku ahaa inuu ahaa qof qaraabada xidhiidhiya warka runta ka sheega waayo beentu mujtamaca way halaagtaa kuwa culaysku saaraya culayska ka dejiya kuwaan waxba haysanin macduumkaa waxtara martida iyo socotada soora dhibaatada dadka la qaybsada idan bulshada waxay tilmaamaysaa inuu qof waxtara ku ahaa saa awgeed ayuhalaxiba waxaynu leenahay dhallinyaradu waa inay dareentaa mas-uuliyadda bulshada ka saaran qawaacid alxayaana waxay inoo tilmaamayaa nolosheennu inay isku xidhan tahay haddii dadku mas-uuliyaddaa uu wada dareemana in nolosha dadka la badbaadin karayo waana shayga waajibka kifaa'iga ah ee diintu ay sheegayso ilaahayna uu ina leeyahay wanaaggana isku gargaarsada xumahana ha isu gargaarsanina watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ou nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadka mu'miniintii inay shucuur mushtaraka dareen mida inay leeyihiin oo ah kuu nebigu lahaa mathalu lmu'miniina fii tawaaddi dadka mu'miniinta tusmahoodu wuxuu yahay ama tusaalahoodu marka laga eego cawaatiftooda iyo isjacaylkooda iyo isku xidhnaantooda iyo isu naxariisadkooda sidii jidhkuna baa la tilmaamaya jidhku qayb jidhkii ka mida uu ihmaaliyaa ma jirto waxaa ilaahay qur-aanka inagu siiyaa amhila tusaalayaal lagaga warramayo dad dowrkoodaasi qaatay oo ah qofku inuu mas-uuliyadda dareemo maalan fii suurati yaasiin ninkaasi ilaahay ka warramayo ninkaa ilaahay wuxuu ku sifeeyey wajaa'a min aqsa almadiinati rajulun yascaa marka hore waxaa la sheegay magaalada in 3 rasuul loo diray rusushii in la diiday ilaahay wuxuu ka warramayaa markaa qof bulshadii ka mida oo dareemay in xil saaran yahay oo aan odhanin meesha 3 rasuul baa joogay anugu maxaan sheegayaa laakiin iyadoo 3 rasuul joogto ayuu wuxuu qaatay xilka ah inuu isna dadkan u digo ninkaa markii ilaahay sifeynaya dhowr sifuu ku sifeeyey waxaa la sheegayaa inaanu meeshan warku ka dhacay aanu joogin ee magaalada dacalkeeda uu ka yimi warku nimuu meel kale ku gaadhay inuu yahay
waxaa la sheegay dareenkii uu dareemay mas-uuliyaddaasi inuu socod degdeg ku jiro soo socday rajulun yascaa baa ilaahay leeyahy sacyigu waa almashyi sariic bay yidhahdaan socod degdegi ku jirto inuu waday waxa uu wadayna inuu mas-uuliyad iska rida bay ahayd tolkii inuu ku yidhaahdo war rusushaa raaca sababtu waxay tahay wixii lagu raaci lahaa bay wadaan ittabicuu lmursaliin ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun ninkaasi mas-uuliyadda siduu u dareemayey iyo dadkiisa siduu wanaagga ula rabay ilaahay wuxuu inooga warramay markii la dilay ee uu dhintay dareenkuu qabay qiila idkhuli ljanna jannada gal baa la yidhi qaala yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajcalanii min almukramiin alla jeclaan lahaayee buu leeyahay wuxuu tamaninayaa tolkay hadday og yihiin sida ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigayga u dhaafay iyo khayrka aan helay iyo wanaagga iyagu siday u diidan yihin bima gafara lii maadan waa mawsuuliye waa la yidhaahdaa waa masderiye waa la yidhaahdaa waa istifhaamiye waa la yidhaahdaa intuba macno isku dhodhow waxaan jeclaan lahaa buu leeyahy tolkay inay ogaadaan sababtii ilaahay dembigayga ku dhaafay ama tolkay inay ogaadaan sida ilaahay dembigayga u dhaafay ama tolkay inay ogaadaan biayi shay gafara lii rabbii dunuubi saddexda macno waa isku dhodhow yihiin waa mas-uuliyaduu dareemayo inuu mujtamaca u naxo khayrka la jeclaado xataa isagoo dhintay inuu u tamaninayo waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inooga warramaya nin tolkii wanaaggaa isna la raadcaynayoo kale mu'min aali fircawn uu qur-aanku ka warramayo fircoon oo rasuulladii labadii nebi loo soo diray diiday oo nin iimaankiisa qarsanaya uu hadlay isagoo le waa raaca rususha ayuha alaxiba waxaan rabaa warka inaan soo koobo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa qur-aan iyo axaadiis tiro badan ku tilmaamayaa mas-uuliyadda mujtamaca qofka ka saara iyo qofku markuu xilkaasi qaado dareenkiisu suyay maalin baa muslimiintu xadiidka bukhaari jihaad baa lagu jiray markaa ragga badhna waa soomanaa ragga badhna ma soomanayn meel cadceed kululle waa la joogay gacantaa raggu ay gaadhay inay hadhsadaan dabeetana raggii soomanaa way daateen raggii aan soomanayn ayaa markaa shaqadii oo dhan qabtoo dadkii u khidmeeyey taamugyadii u dhisay xoolihii daaqgeeyey biyihii keenay wixii loo baahnaayoo dhan qabtay markaasuu nebigu wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dahaba almuftiruuna alyawma biاlajri buu nebigu yidhi kuwii afuraa baa maanta ajarkiiba la tegay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu nebigu rabaa inuu u tilmaamo cibaadada qaasirka ah kuwan sameeyey iyagu lafahooda u soomay labada qoloba jihaad bay u socdaan iyo nimanka kan kuwii soomanaa iyo dadkoo dhan u shaqeeyey inay labada ajar badan yihiin kuwan shaqada caamkaa qabtay inay ka ajar badan yihiin kuwii iyagu lafahooda u soomanaa markaasuu nebigu wuxuu leeyahay kuwii afuraa ayaa ajarkiiba qaatay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba nebiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam axabu nnaasi ila allah ilaahay dadka yuu jecel yahay ama acmaasha kuwee buu ugu jecel yahay wuxuu nebigu yidhi ilaahay dadka wuxuu ugu jecel yahay ka dadka ugu anfaca badan leh acmaashana waxaa loogu jecel yahay baa la yidhi farxad aad qof muslima qalbigii geliso ama culays haystay oo aad ka rogto dayn aad ka daadajiso gaajo aad ka reebto walaalka iyo dantiisa aad u raacdo markaasuu nebigu wuxuu soo gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam isagoo isdhinac dhigaya cibaadada qaasirkae qofku uu naftiisa uu u samaynayo
iyo markuu mas'uuliyadda mujtamaca wax ka qaado ayuu nebigu wuxuu yidhi inaan masaajidka kan bil ku ictikaafo masaajidku nebigu sheegaya ma garanaysaa waa almasjid الnabowi masjid الnabowi salaada lagu tukadaa waa imisa halkii salaadba waxay u dhigantaa maxay 1000 salaadood masjid الnabowi markaa imisa salaadood baad bil ku tukan karaysa ugu yaraan 150 salaadood soo maaha 5 salaadood oo 30 maalmood oo 150 iyo ictikaafkii waxaan ka jeclay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inaan qof muslima raaco oo aan dantiisa u oofiyo yani bulshada danteeda inaan ka shaqeeyo ayaan ka jecelahay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inaan masaajidkaa fadhiyo sidaa idhaahdo saa sameeyo qofku markuu xilka isa saaro bulshada in badan baa maqasheen axaadiistii sheegayey ninkii waddada ka duway qodaxda ee jannada ku galay gabadhii eyga harraadan waraabisay ee ilaahay dembigeeda ku dhaafay kuwuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam assaaci cala alarmalati waalmiskiin ninka dumarkaasi laga dhintay ama carmalka noqday iyo masaakiinta qofka u adeega inuu la mid yahay kalmujaahidi fii sabiili illaahi buu nebigu qof ilaahay dartii u jihaatamay ama alqaa'im alleyl الsaa'im الnahaar mid habeenkiina taagan maalintiina sooman inuu la mid yahay yani waxaasoo ajara waxaa la ysdhinac dhigayaa qof maalinna sooman habeenna tukanaya baa la ysdhinac dhigayaa qof ducafadii muslimiinta wax taray ayuha alaxiba cagsigeeda waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya dadka aan mas-uuliyadda caamkaa qaadin bale ka soo horjeesta iyo dhibtoodu sidaytay ara'ayta aladii yukadibu biddiin ilaahay wuxuu leeyay bal ka warrankii qiyaamaha beeniyey maxaa kan sifa looga dhigay fadalika aladii yaducu lyatiima walaa yaxudu calaa طacaami اlmiskiin waa kan deedafaynaya agoonta riixaya oo aan dhiiri gelinaynin miskiinka quudintiisa miskiinku wax siiyaa lama odhan miskiinka qofka wax siiya nusuus kale qur-aanaa ka warrantay waata almaala calaa xubbihi dawi اlqurba walyataama wاlmasaakiin wabni sabiil nusuus kale ilaahay ku tilmaamo laakiin kan waxaa la tilmaamayaa qof xataa isagoo aan waxbaba haysan baa suurtagala laakiin dhiiri gelinaya in dadka wax la siiyo maadaama dhiirigelintaas buu nebigu ayaa qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa inay tahay calaamaadka qofka mu'minka ee dhabta ah inaad taa diiddo oo aad iska hortaagtaana inay ka mid tahay markaa calaamaadka kuwa kanaan qiyaamahaba rumaysnayn in badan baa qur-aan ku aragteen agoonta iyo masaakiinta iyo dadkan caawintooda waa min mas-uuliyaati almujtamac cagsigeeduna waa waxyaabaha naar lagu galo kalaa bal laa tukrimuuna alyatiima walaa taxaaduuna calaa طacaami اlmiskiin ayuha alaxiba markaa waxaa leenahay dhallinyaro qofku yuu naftiisa oo qura ka fekeri aragtidaadu iyay ku koobnaanin maxaan cunaa iyo maxaan ka shaqeeyaa iyo yaan guursadaa iyo meeshaad salaadaada ku tukanaysiiyo cibaadadiisa nacam intani waa intii naftaadu ay kugu lahayd laakiin bulshada iyo ummadda kalena xil baa kaa saaran xilkaa kaa saarani mid waa inaad xumaha joojiso haddii kale doontu weynay la wada degaysaa xumahaasi aad ka hortegaysaa ee mas-uuliyaddu kaa saarantay waa mid diineed waa mid dhaqameed waa mid siyaasadeed waa nolosha bulshadoo dhan wixii dhib ku keenayoo dhan inaad is hortaagi karto dhanka kalena waa dhankii positifeka ahaa waa bulshada ducafadeeda masaakiinteeda kuweeda baahan kuwa gaajaysan kuwa waxtarka u baahan kuwa kaalmada u baahan in la caawin karo oo af iyo adduunba lagu caawin karaayo inaynay tahay waxayna saaran
taa macnaheedu waxa weeyaan inaynu dareen mas-uuliyaad yeelanno oo dhallinteenu ay noqoto dad dareemaya mas-uuliyaadkaas